Sanadkii 2004 waxaa dhaawac weyn soo gaadhay xiriirkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana sanadkaa dhacay dhacdo weyn oo Mareykanka ku kaliftay lacagtiisa dollarka ah inuu dib u habeeyo oo u adkeeyo fuujariyeynteeda. Sidee ayay wax u dhaceen markaa? 2 Oktoobar sanadkii 2004 markab laga leeyahay dalka Panama oo lagu magacaabo Eva Louis oo ka soo dhaqaaqay dekedda Yantai ee dalka China ayaa ku soo xidhay dekedda New York ee ku taalla gobolka New Jersey ee Mareykanka. Markabkaasi markii uu ka soo dhaqaaqay China iyo ilaa intii uu ka soo gaarayay Mareykanka, dhaqdhaqaaqiisa waxaa la socday FBI-da Mareykanka oo ay soo gaadhay xog sheegaysa markabka inay saaran tahay alaab dalka halis ku ah. Markabkaasi dekedda New York markii uu ka soo xidhay ayay isweer ka qabteen ciidamada FBI-du oo ay baadheen agabkii markabka uu siday. Agabka uu siday waxa ay u badnaayeen waraaqaha kartoonka iyo boombalada ay carruurtu ku ciyaarto. Balse waxa kale oo markabka ay FBI-du ka heshay lacag badan oo forgery ah oo warqadda $100 ah oo qiimaheedu dhan yahay $300,000. Iyadoo ay jirto lacagta forgery-ga ah ee la qabtay in aanay hayn lacag badan, haddana dhacdadaasi waxa ay bedeshay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Maxaa yeelay Mareykanka Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku eedeeyeen inay ku lug leedahay hawlgal lagula dagaalamayo lacagteeda oo dalkeeda lagu soo gelinayo dollar fara badan oo forgery ah. Waxaanay u arkeen falkaasi inuu yahay daandaansi iyo horin colaadeed. Bilowgii baaritaanka, Mareykanku waxa ay daba galeen howlaha kooxaha burcadda iyo maafiyada ah ee ka howlgala bariga Asia. Taxaano dheer oo dabagal ah kadib waxa ay ogaadeen cidda dollarkan forgery ah soo saarta inay tahay isla maamulka ka taliya Kuuriyada Waqooyi. Iyadoo ay jirto Kuuriyada Waqooyi dhankeeda inay diiday falka inay wax luga ku leedahay, haddana Mareykanku wuu hubay in iyagu ay ka dambeeyaan. Arrinka la yaabka leh waxa uu yahay in dollarkan forgery-ga ahi aanay jirin haba yaraatee wax uu kaga duwan yahay dollarka caadiga ah. Hay-adda u xilsaarneyd soo saarista dollarkan forgery-ga ahi waxa ay adeegsatay isla khadka tayadiisu sarreeyo ee ay adeegsadaan madbacadaha soo daabaca dollarka Mareykanka. Sidoo kale warqadda forgery-ga ay u adeegsadeen waa isla warqadda asalka ah ee madbacadaha Mareykanku ay adeegsadaan. Xataa qaabka astaamaha iyo qoraalku ay lacagta ugu yaalaan waa isku mid. Waxa ay sidoo kale adeegsadeen madbacadda loo yaqaan Intakio oo ah isla madbacadaha Mareykanku uu u adeegsado soo daabacidda dollarkiisa. Dhacdada hore 2 bilood oo kaliya kadib, haddana mar kale FBI-du isla dekedda New York waxa ay ku qabatay markab kale oo $3 milyan oo forgery ah sida. Bishii May ee 2005 dekedda Long Beach ee ku taala gobolka California waxa ka soo xidhay markab siday $700,000 oo forgery ah. Arrinka dul istaagista mudani waxa uu yahay howlgalladan forgery-yeynta ahi in aanay bilaabmin sanadkii 2004 ee ay bilaabmeen sanadkii 1989. Waagaas oo mushkilad weyn ay soo food saartay bangiga dhexe ee dalka Filibiin. Shaqaalaha bangiga Filibiin mid ka mid ah ayaa waxa uu ka shakiyay dhowr ka mid ah warqadaha $100 ah ee soo galay. Kadib bangigii Filibiin waxa uu waraaqihii u diray bangiga Mareykanka si ay uga caawiyaan caddaynta lacagtaas inay forgery tahay iyo in kale. Maxaa yeelay dabayaaqadii 80-aadka agabka tiknoolajiyadeed ee lagu ogaado lacagta forgery-ga ahi sida imika uu horumarsan yahay uma uu horumarsanayn. Almuhim, bangigii Mareykanku lacagtii markii uu baadhay waxa uu caddaatay inay tahay lacagtani lacag forgery ah. Saacaatee madaxda bangiga Mareykanka arrinka naxdinta ku abuuray waxa uu ahaa warqadda forgery-ga loo adeegsaday in laga sameeyay isla walxaha laga sameeyay warqadda dollarka asalka ah, kaasoo kale ah 65% cudbi ah iyo 35% geedka flax-ka loo yaqaano. Waqtigaana Mareykanka umay suuro gelin inay ogaadaan cidda forgery-ga qaabkan u heer sarreeya ka dambaysa. Waxaanay ku qasbanaadeen inay sugaan inta uu horumarayo agabka tiknoolajiyadeed ee lagu ogaado lacagta forgery-ga ah. Markii ay daba galeen waxa ay ogaadeen cidda hawshan ka dambaysay inay tahay xafiiska 39aad ee hoostaga maamulka Kuuriyada Waqooyi. Marka muxuu yahay xafiiska 39 ee xogtiisa aadka loo qariyay? Maxay tahay sababta sirdoonada dawlado badan oo adduunka ka mid ahi ay isugu dayayaan inay u dhacaan xogta xafiiskan? Maxaa loogu sheegaa inuu yahay laf-dhabarta dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi? Maxay tahay hawsha xafiiskani uu xil saaran yahay? Intaa iyo in ka badanba waxa aynu ogaan doonaa inta muuqaalkan aynu wada daadahaynayno ee daawasho wacan. Guud ahaan dalka Kuuriyada Waqooyi waxa uu faraha kula jiraa hawlo badan oo adduunweynaha ka reeban. Taana waxaa sabab u ah isku dayga uu isku dayayo inuu kor u soo qaado dhaqaalihiisa ay ragaadiyeen cunaqabataymaha kala duwan ee ilaa iyo kotomeeyadii awoodaha reer galbeedku ay la beegsanayeen dhaqaalihiisa. Taasi waxa ay keentay dalkani in uu galo go'doon dhaqaale oo adduunka oo idil uu ka go'doonsan yahay marka laga reebo 2 dawladood. Labada dawladood oo kala ah China iyo Iran. Maamulka Kuuriyada Waqooyi labada dawladood waxay uga dhigan yihiin
oksijiinta dhaqaalihiisa uu ka neefsado. Sheekada xafiiskani waxa ay soo bilaabantay sanadkii 1970kii markii cunaqabatayntu ay curyaamisay dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi. Mareykankuna uu go'doon ka geliyay adduunweynaha intiisa kale ayuu ku fakarayay yagleelaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Il-sung qaab uu kaga baxsan karo xaaladda adag ee uu dalkiisu ku jiro. kadib waxa uu aasaasay 3 xafiis oo uu ka furay dhismaha uu leeyahay xisbiga shaqaalaha oo ah xisbiga dalka ka taliya ee ku yaala caasimadda dalka oo ah Pyongyang. 3 xafiisi waxay kala yihiin xafiiska 35aad oo qaabilsan hawlaha sirdoonnimada, xafiiska 38aad oo qaabilsan ganacsiga qaanuuniga ah, iyo xafiiska 39aad oo ah ka ugu qarsoonida badan sidoo kalena qaabilsan dhammaan hawlaha ganacsi ee xeerarka adduunka baalmarsan, waana xafiiska lafdhabarta u ah dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi. xafiiska waxaa maamulkiisa soo qabtay dad kooban oo ka tirsan madaxda sarsare ee dowladda iyo xisbiga, laakiin markii ugu horreysay sooyaalka waxaa hadda maamulkiisa gacanta ku haya qof ka mid ah qoyska maamulka dalka gacanta ku haya, kadib markii uu soo saaray Kim Jong-un warmurtiyeed uu xilka xafiiska ugu magacaabay walaashii oo ah Kim Yoon-jong oo lagu magacaabo gabadha birta ah. isaga oo uga dan leh awooddeeda inuu sii fidiyo ayuu Kim Jong-un go'aansaday walaashii inuu u guuriyo maamulihii hore ee xafiiska oo lagu magacaabo Choi Song kadib markii uu xilka ka xayuubiyey. warbixino tiro badan ayaana tibaaxaya in Kim Yoon ay noqon doonto madaxweynaha dalka haddii uu walaalkeed xilka ka dego amaba uu dhinto. xafiiskani hawl aan u qabanin way yar tahay. hawlaha waxaa ka mid ah inuu hubka ka iibiyo dowlado badan oo ku yaala Afrika, Asia iyo Bariga Dhexe, foojariyeynta lacagta iyo suuqyada adduunka inuu ka buuxiyo dollar foojari ah si uu u qiimariyo dollarka. Mareykankuna waxa uu tilmaamay dollarka foojariga ah ee xafiiskani uu sameeyey ee maanta dalka Mareykanka oo kaliya gudihiisa laga adeegsadaa inay kor u dhaafayso 45 milyan oo dollar. intaana waxay ku dareen in faa'iidada xafiiskan uga soo xarootay foojariyeynta lacagtaasi ay tahay 25 milyan oo dollar sanadkii. hawlaha kale ee xafiiskani uu qabto waxaa ka mid ah tahriibinta agabka iyo koobiyeyntooda, ka ganacsiga daroogada. hamoodin xafiisku inuu soo iibsado daroogada oo uu sii iibiyo. ha sheegintaa xafiiskani waxa uu leeyahay beero ilika aragtay ah oo lagu beero noocyada kala duwan ee daroogada sida horowiinka iyo metafaytaminka. arrimaha aynu soo sheegnay oo dhammi waa arrimo iska dhow oo maafiyanimo uun ku lug leh. hase ahaatee hawsha ugu halista badan ee xafiiskani uu qabtaa waa ka ganacsiga dadka. ka ganacsigaas oo u kala baxa in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu dad shaqaale ah u diro dalalka Afrika, Asia iyo Yurub, shaqaalahaas oo ku hawlgala duruuf aan waxba ka duwanayn adoonsiga, iyo in muwaadiniinta dalka dad ka mid ah shaqaale ahaan looga hawlgeliyo warshadaha dowladda, shaqaalahaas oo ku shaqeeya duruuf adag oo bini'aadanimada ka baxsan oo aan waxba ka duwanayn jeelasha la isku xidho. shaqaalaha qaabkan dalka gudihiisa kaga shaqeeya qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay inay tiradoodu gaadhayso 250,000 oo qof. dhammaan dhaqaalaha xafiiska 39aad soo gala waxa ay ku dhacaan akoonka Kim Jong-un. kadib isaga ayaa u sii kala qaybiya xubnaha qoyskiisa, madaxda ciidamadiisa, wasiiradiisa iyo cid kasta oo ka caawisa kursiga inuu ku sii fadhiyo, halka 60% ka mid ah dadka Kuuriyada Waqooyi ay saboolnimo ku nool yihiin. sida ay sheegeen xogo sirdoon iyo dad ka tirsanaa maamulka Kuuriyada Waqooyi oo lafahooda la baxsaday, waxay ku qiyaaseen xafiiskaasi hantida uu soo xareeyaa inay u dhaxayso 650 milyan ilaa 2 bilyan iyo 500 milyan oo dollar. sanadkii ina soo dhaafay sirdoonnada dowlado badan ayaa isku dayay inay u dhacaan xogta xafiiskan. waxaynu odhan karnaa keliya sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa ku guulaystay inuu jabsado xog yar oo ka mid ah nidaamka ammaan ee xafiiskani uu u dhisan yahay. iyaga oo ka duulaya xogta gacantooda soo gashay ayuu Mareykanku 2010 u daha ka fayday qaab dhismeedka maamulka xafiiskani uu u dhisan yahay. Stuart Levy oo waqtigaa ahaa wakiilka waaxda maaliyadda Mareykanka u qaabilsan argagixisada iyo sirdoonka dhaqaalaha, waxa uu daha ka fayday shirkadaha ay ku daba dhuumato Kuuriyada Waqooyi ee hawlaheeda qarsoon ay gabaadka uga dhigato, iyadoo ay jirto sirdoonka Mareykanku xogta uu haya in aanay dhaafsiisnayn madaxda hadda xafiiska ka talisa iyo kuwii hore u soo maray. haddana dhaawacyada ugu badan ee maamulka Kuuriyada Waqooyi soo gaadha waa dhaawacyada kaga yimaada dadkii maamulkiisa xubnaha ka ahaa ee ka fakaday kadibna xogtooda cadowga u gudbiyey. oo sida aynu wada ognahay sirdoonka Mareykanka iyo sirdoonnada kale ee adduunkuba kuma ay guulaysan inay helaan xog sirdoon oo la mid ah xogta uu daha ka faydo hal xubin oo maamulka Kuuriyada Waqooyi ka tirsanaa oo ka goostay. waxaa intaa dheer in dadka soo goosta tiradoodu aanay yarayn, oo sida uu faafiyey xarunta diraasaadka istiraatiijiga ah ee saldhiggeedu yahay Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen tirada dadka soo goostay inay kor u dhaaftay 30,000 oo shaqaale dowladeed ah.
waa run badankoodu inaanay haynin xog muhiim ah oo ay tebiyaan, laakiin dadka soo goostay waxaa ka mid ah diblomaasiyiin waaweyn oo xogo wax ku ool ah haya. Waxa ugu dambeeyey Rio Wun Wu oo ahaa diblomaasi weyn, waxa uuna goostay sanadkii 2021. Rio waxa uu ahaa diblomaasi weyn oo ka howlgala safaaradda dalkiisu ay ku leedahay dalka Kuwait. Dhaawacyada ugu waaweyn ee Mareykanku uu gaarsiiyey Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mid ah waraysigii shabakadda ABC ay la yeelatay mas'uul sare oo soo goostay oo xil sare oo maamul ka soo qabtay shirkadda Kongan oo ah shirkad ka ganacsata dahabka iyo diamanta, waana shirkad ka mid ah shirkadaha maamulka Kuuriyada Waqooyi uu u adeegsaday tahriibinta gabaadkana u ah. Mas'uulkani waxa uu qiray in Shiinuhu uu kula jiro maamulka Kuuriyada Waqooyi ka ganacsiga daroogada. Sidoo kale waxa uu sheegay magaca afgarashada ah ee xafiiska 39aad ay u adeegsadaan xubnaha sare ee dawladdu, magacaas oo ah sanduuqa kacdoonka. Marka sidee ayuu xafiiskani isu ilaaliyaa? Hawlaha uu qabtaana ma intan ayuu ku eegyihiin? Dhab ahaantii jawaabtu waa maya. Waxaynu wada ognahay xafiis sidan oo kale u howlgala inuu leeyahay maamul ammaan oo adag oo xogtiisa ilaalisa. Maamulka ammaan ee xafiiskani inuu adag yahayna waxaa ka marakacaya ilaa waqtigan oo la joogo waaxaha sirdoonka adduunka ee kala duwan inay awoodi waayeen inay jabsadaan xogihiisa. Waxaa jira nin lagu magacaabo Gum Mong Hyun oo Machadka Asia ee daraasaadka siyaasiga ah u qaabilsan dabagalka dhaqdhaqaaqa xafiiska 39aad. Ninkaasi waxa uu sheegay xafiiskan gudihiisa inay ka howlgalaan boqolaal hackeris ah oo xirfad aad u sareysa leh. Waxa aanay weerar hackar ah ku qaadaan bangiyo badan oo adduunka ka mid ah si ay hanti uga dhacaan, sida weerarkii ugu dambeeyay ee lala beegsaday bangiga federaalka ee Mareykanka ee New York ku yaala. Hackerska xafiiskani waxa ay qarka u saarnaayeen inay xadaan lacag ku dhow 1.2 bilyan oo dollar. Hase ahaatee, gef uu hal xaraf gefay mid ka mid ah hackerskaasi ayaa ka hor istaagtay xatooyadaasi inay dhammaystiranto. Sidaa awgeed, xafiiskani waxa uu awood u leeyahay ciidankiisa hackerska ah inuu u adeegsado inay la wareegaan xogta dawladda dhan oo ay howlgab ka dhigaan, sidii dhacday sanadkii 2016 markii hackerisku ay qaadeen weerarkii loo yaqaanay WannaCry oo loo aqoonsaday inuu ahaa weerarkii ugu halista badnaa ee Ingiriiska soo mara sanadihii u dambeeyay. Hackerskaasi waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan xogtii ay lahayd waaxda caafimaadka ee dalka Ingiriiska oo dhan, ka hor intii aanu ku guuleysan hackerka reer Ingiriis ee lagu magacaabo Mark Sessions inuu awdo galdaloolada weerarka loo adeegsaday. Weerarkana waxa la aaminsan yahay Kuuriyada Waqooyi inay ka dambeysay. Qaabka hackeradani ay xoolaha uga sameeyaan weeraradoodu waa marka ay gacanta ku dhigaan xogta waaxda ay weerareen inay ugu goodiyaan xogtooda inay faafin doonaan haddii aanay bixinin lacag madax furasho ah. Dhaqaalaha xafiiskani uu ka faa'iido weerarada elektarooniga ahna waxaa lagu qiyaasay inay gaadhayso 81 milyan oo dollar sanadkii. Waxaynu soo gaarnay gunta iyo gabagabada muuqaalkeena. Inta aanan idinka tegin waxa aan jeclaa inaan idin weydiiyo, xafiiskani haddii aanu jiri lahayn ma idinla tahay Kuuriyada Waqooyi inay mar hore isdhiibi lahayd oo ay Mareykanka u dhagdhaglaan lahayd?